akhyaarta ku xiran Bulqaas Media ku soo dhawaada warbixin ku saabsan dagaalka Ukraine iyo cawaaqib xumada uu yeeshay. Sanad ka hor madaxweynaha wadanka Ukraine Zelensky ayaa waxa uu ka digay in dagaalka ka socda wadankiisa ee Ukraine in uusan sii joogi doonin ama ku ekaan doonin dalkiisa oo kaliya. Sheekooyinka xifaaltanka ee maanta ee Moscow, Warsaw iyo Beijing ayaa mar kale xoojiyay tan, waxana sidoo kale ay iftiimiyeen walwalka joogtada ah ee ku saabsan kororka khatarta ah ee wali jirta. Go'aanka madaxweyne Putin uu kaga baxay heshiiskii xakamaynta hubka nukliyeerka ayaa meesha ka saaray tiir muhiim u ahaa qaab dhismeedka amniga ee muhiimka u ah adduunka. Xaaladda dagaal ee maanta waxa ay hoosta ka xariiqaysaa sida ay wadamada adduunka ay ugu kala qaybsan yihiin dagaalka dalka Ukraine, iyadoo arrintani ay sii qoto dheeraanayso, iyadoo oo labada dhinacba ay hadda ay u heelan yihiin in ay guul gaaraan sida ugu habboon sanadkan. Inkastoo dalka Ukraine tani weli ay ugu muuqato in dagaalkeedan uusan dhammaad lahayn, dalal badan oo adduunka ah oo ay dhibaatadu ay ka soo gaartay iska hor imaadkan ayaa digtoonaan ku eegaya. Hadalka madaxweyne Biden ee ah in dagaalkani uu qeexi doono nolosha jiilalka soo socda ayaa hoosta ka xariiqaya sida iska hor imaadkan ama dagaalka dalka Ukraine uu u yeelan doono cawaaqib xumo. Hal sano oo kaliya oo dagaalkan uu socdo ayaa saameynta ballaaran weli ay adag tahay in la sii saadaaliyo. Khudbadda madaxweyne Biden ee Warsaw ayaa timid kadib markii la daabacay tirikoobyo cusub oo muujinaya in kaalmada military ee Mareykanka uu siiyo Ukraine ay 5 jeer ay ka weyn tahay taageerada uu ka helo wadan kale. Washington waxa ay ballan qaaday in ay ku qarash garaynayso ku dhawaad 47 bilyan oo dollarka Mareykanka hubka iyo qalabka ciidamada qalabka sida ee wadanka Ukraine inta u dhaxaysay 24 January ee sanadkii hore ilaa 15 January ee sanadkan. Dalka Britain ayaa ah deeq-bixiyaha labaad ee ugu weyn oo ballan qaaday 5.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Midowga Yurub ayaa isna ballan qaaday lacag gaaraysa 3.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Poland waxa uu isna ballan qaaday 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Germany waxa ay ballan qaaday 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Canada waxa ay ballan qaaday 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Netherlands waxa uu ballan qaaday 9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Talyaaniga waxa uu isna ballan qaaday 7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Faransiiska waxa uu ballan qaaday 7 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dalka Norwayna waxa uu ballan qaaday 6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhammaan kharashaadkan loo ballan qaaday wadanka Ukraine ayaa ah gargaar military oo wadamadan ay ugu yabooheen wadanka Ukraine. Cilmi baarayaal ka socda macadka lagu magacaabo Kiel ee dhaqaalaha adduunka ayaa muujiyay farqi weyn oo u dhaxeeya ballanqaadyada taageerada miisaaniyadeed ee Kiev iyo lacag dhab ah oo la bixiyay. Laga bilaabo bishii hore 48% oo kaliya oo ah taageerada miisaaniyadeed ee dibadda ee la go'aamiyay ayaa la bixiyay sida ay yiraahdeen. Geesta kalena go'aanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku hakiyay ka qaybgalka heshiiska hubka nukliyeerka ee muhiimka u ah Mareykanka iyo Ruushka ayaa UK waxa ay ku tilmaamtay mid degdeg ah. Kontaroolka hubka ayaa muhiim u ah amniga gayigeena ayuu yiri afayeenka ra'iisul wasaare Rishi Sunak, ra'iisul wasaaraha dalka Britain, kaasoo ku booriyay Putin in uu dib u eego arrintan. Marka laga tago Warsaw, Ruushku waxa uu muujiyay suurtagalnimada in laga tanaasulo heshiiska nukliyeerka ee muhiimka ah in lala galo Mareykanka. Go'aanka lagu joojinayay ka qaybgalka heshiiskan bilowga cusub waxa laga yaabaa in la bedelo sida lagu sheegay boostada ku jirta abka fariimaha ee Telegram ee wasaaradda amuraha dibadda ee Ruushka. Madaxweyne Putin ayaa ku dhawaaqay joojinta khudbaddii uu jeediyay maanta. Saraakiisha Mareykanka ayaa horey u aaminsanaa in Moscow ay ku guuldareysatay inay raacdo heshiiska. Bayaanka cusub ee Ruushka ayaa isla eedeyn la mid ah tan Washington isna u jeediyay xukuumadda Washington. waad ku mahadsantihiin dhageysiga warbixintaasi oo aad kala socoteen Bulqaas Media. Fadlan haddii aad ku cusub tahay Bulqaas Media, like-ta iyo sidoo kale follow-ga ha naga ilaawin. Haddii se aad tahay macmiil soo noqday, ha naga ilaawin sidoo kale in aad share garayso warbixintan, sidoo kalena commentiga aad noogu reebto wixii fariimo ah.
waad mahadsantihiin.